assalaamu calaykum. Qofkan 15 kitaab oo jaamaca ayuu musqusha dhex dhigay, laakiin fiiri waxa ku dhacay. Muuqaalkan ayaan ku baran doonaa sida ay samaydayba naagtan Lubnaaniyadda, taasoo Ilaahay ku taxadiday kumanaan muslimiin hortooda. Ma rumaysan doontid wix ku dhacay ugu dambayntii naagtan. Waxayna aragtay ninkii tukanaya oo ducaysanaya oo dhahaya, Ilaahu cunugayga ii caafi. Waxayna tiri, nin yahow, maxaad leedahay? Yaa cunugaaga caafinaya, miyaad waalan tahay? Aniga Ilaahay ma arkin, adigana Ilaahay ma arkin. Siduu cunugaaga u caafinaya qof aadan aqoon? Aniga hadda waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu dilo gabadhayda yar. Ilaahow hadda dil gabadhayda. Ma u malaynaydaa gabadhayda inay dhimanaydo? Aan daawano muuqaalka dhammaystiran. Laakiin intaada muuqaalka daawan like saar, channelkan subscribe saar. Waa qiso dhab ah oo ka dhacday dalka Lubnaan. Waxaa jirtay naag Lubnaaniyada, waxayna ku noolayd Lubnaan. Waxayna ka shaqay jirtay mid ka mid ah shirkadaha duulimaadyada. Maalin maalmaha ka mid ah waxay la cajabtay saaxiibkeedii shaqada. Wayna isguursadeen. Ninka ay guursatana wuxuu ahaa nin muslim ah. Ninkan ayaa maalin kasta tukan jiray, wuxuuna laazimi jiray tacaaliimta iyo mabaadi'da islaamka. Ninkan ayaa fiirinaya xaaskiisa, maxaa yeelay ma aysan tukan jirin, mana aysan qaadan jirin wixii uu islaamka uga sheego. Laakiin nafsadiisa wuxuu ku dhihi jiray, way tukan doontaa mustaqbalka. Wuxuuna dhihi jiray, islaamku waa diin fudud ee ma ahan diin culus, waana diin la isku qanciyo ee ma ahan diin la isku qasbo. Maxaa yeelay waa qalad inaad qof islaamka ku qasabtid. Islaamku uma baahna ee asaga u baahan. Waana la isku qanciyaa, maxaa yeelay waa diinta toosan oo saxda ah. Maxaa yeelay qof walba oo ku dhex jira oo baara diinta islaamka wuxuu ogaanayaa inay noloshiisa ka dhigaydo mid caafimaad leh oo toosan. Ninkan ayaana yidhi, ma ku qasbaayo shay aysan ku qanacsanayn. Waana u sabri doonaa, waxaana bari doonaa tacaaliimta diinta, wayna tukan doontaa. Horteeda ayuuna ku tukan jiray maalin kasta si ay ugu qanacdo islaamka. Maalin kastana islaamka ayuu uga sheekay jiray si ay ugu qanacdo oo u tukato. Wuxuuna u sheegi jiray ciqaabta taariku salaadka. Wuxuuna uga sheekay jiray qisooyin qurux badan oo nebiga iyo asxaabtiisa ku saabsan sallallahu calayhi wasallam si ay islaamka u jeclaato oo ugu qanacdo. Laakiin hadalkaas oo dhan wax faa'iido lama lahayn ayada. Muddo aad u dheer ayuuna isku dayay inuu islaamka wax ka baro. In badan ayuuna ku samray, laakiin aslanba islaamka kumaysa qanacsanayn. Wax diina oo ay haysatana ma jirin, ee keliya islaamka maahan. Naagtan ayaa xilligaas dareentay xanuun caloosha ah. Dhakhtar ayayna u tagtay, markii la baarayna wuxuu sheegay inay uur 7 bilood leedahay, weliba gabar ay caloosha ku sido. Ninkiina wuxuu ogaaday in ilmo cusub loo dhali rabo. Aad ayuuna u faraxsanaa. Laakiin wuxuu aad u murugooday markuu ogaaday xaaskiisan uur kale inay aad u murugaysan tahay. Maxaa yeelay kumuusan faraxsanin xaaskan, wuxuuna rabay inay kala tagaan ka hor intaysan uur u qaadin oo aysan cunug u dhalin. Gurigoodii ayay u soo laabteen ninkan iyo xaaskiisu. Naagtiina waxay ogaatay ninkeeda inuu murugaysan yahay, wuxuuna u sheegay inuusan rabin in xiriirkan uu dhammaystiro, uuna rabo inay kala tagaan. Isla markiiba wuu furay, wayna kala tageen. Maxaa yeelay waxay ahayd qof mulxid ah oo Ilaahay jiritaankiisa inkirsan. Waxayna ahayd qof neceb diinta islaamka iyo dhammaan diimaha ka soo degay samada. Markuu guursaday kadib ayuuna ogaaday arrintaas, sidaas darteed ayuuna u furay oo ay u kala tageen. Naagtan ayaa u safartay Maraykanka iyadoo wadata cunugteedii yarayd. Waxayna u safartay si ay uga fogaato ninkeeda uusan u arkin cunugta yar. Markii ay Ameerika tagtay, waxay ka shaqay jirtay mid ka mid ah shirkadaha duulimaadyada. Maalin maalmaha ka mid ah ayay aragtay nin ka mid ah shaqaalihii diyaaradda oo ka soo jeeda wadamada Carabta. Wuxuuna ahaa qof muslim ah, mar kastana salaada ayuu tukanayay, qur-aankana wuu akhrinayay asagoo shaqadiisa ku jira. Maxaa yeelay xilligaas wuxuu ahaa bisha Ramadaan oo barakaysan. Ninkan ayaana cibaadaysanayay asagoo shaqadiisa ku jira. Qolkiisa ayayna ka shaqaynayday, waxayna arkayday asagoo qur-aanka akhrinaya. Waxayna dhahayday, waa maxay kan? Ninkayga waan ka soo tagay Ameerika ayaana u soo safray. Meel kasta ma waxa iga horreeya dad muslimiina. Waa maxay nasiib xumadan? Waxayna aragtay ninkii tukanaya oo ducaysanaya oo dhahaya, Ilaahu cunugayga ii caafi. Waxayna tiri, nin yahow, maxaad leedahay? Yaa cunugaaga caafinaya, miyaad waalan tahay? Aniga Ilaahay ma arkin, adigana Ilaahay ma arkin. Siduu cunugaaga u caafinaya qof aadan aqoon? Wuxuuna ugu jawaabay, Ilaahay ka cabso, maxaad dhahaydaa? Cunugayga jirro ayaa ku dhacday, Ilaahay ayaana u baryayaa. Waxaan ahay qof daciif ah oo aan tabar lahayn. Ilaahayna waa waddada kaliya oo lagu badbaadi karo adduunyadan dhexdeeda. Waxayna tiri, aniga ayaad i taxadinaydaa, waxaadna leedahay Ilaahay ayaa caafinaya cunugayga. Aniga hadda waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu dilo gabadhayda yar. Ilaahow hadda dil gabadhayda. Ma u malaynaydaa gabadhayda inay dhimanaydo? Runtii maya. Maxaa yeelay ma jiro wax Ilaahay la yidhaahdo, waxaasoo dhanna waa khuraafaad. Ninka ayaana yidhi, Ilaahay baan kaa magan galay, maxaad dhahaydaa? Ma waxaad habaaraydaa gabadhaada? Weligay ma arkin qof samaynaya waxa aad samaynay sidoo kale. Waxaan ku jirnaa bishii wax walba la aqbalayay, waana bisha Ramadaan. Waxaadna habaaraysaa gabadhaada. Adiga waad i taxadiday, gabadhaydana waan habaaray, run ahaantii waxna kuma dhicin. Ninkii ayaana isaga tegay naagtan, maxaa yeelay waxay ahayd mid aad u madax adag.
naagti ayaana gurigeeda aaday, albaabka ayayna furtay, waxayna aragtay waxay ka naxday. waxayna aragtay gabadheedii oo dhimatay kadib markay ku cayaaraysay qolkeeda. waxayna aragtay gabadheedii oo dhulka taalla oo ay ag yaallaan waxyaalihii ay ku cayaaraysay. wayna aamustay, waxayna tidhi, hadda ayaan qiray islaamku inuu yahay diin xaq ah. wa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh. aad ayayna uga murugootay gabadheeda, shaqadii oo dhan ayayna joojisay. waxayna u laabatay Lubnaan, waxayna u laabatay ninkeedii, arrintii oo dhan ayayna u sheegtay. wuxuuna ku yidhi, tani waa ciqaab ilaahay xaggiisa kaaga imaatay, maxaa yeelay ilaahay ayaa taxadisay. sidoo kale waxaad rabtay inaad gabadhayda iga fogaysid. waxayna tidhi iyada ooyeysa, waan qirtay qaladka weyn oo aan galay, waana ku qancay ciqaabka ilaahay, waxaana weydiisanayaa inuu ii dhaafo dembigii weynaa oo aan ka galay. adigana waxaan kaa rajaynayaa inaad i cafi doontid. waxayna ku tidhi, ma iga oggolaanaysaa mar kale inaan isguursanno? ninkii ayaa aamusay, aad ayuuna u ooyaayey. wuxuuna ku yidhi, ma u ooyaaya inaan adiga kaa murugaysanahay? waxaan la ooyayaa maxaa yeelay waxaan ku faraxsanahay inaad u soo laabatay islaamka, mana ka murugoonayo gabadhayda inaan waayey, maxaa yeelay taas waa qadarta alleh. waanan kugu waafaqsanahay inaan isguursanno mar labaad. waxayna u tageen qaadigii, mar labaad ayayna isguursadeen. nolol farxad leh ayayna ku wada noolaadeen. tani waa dhammaadka qisada. waxaana ka qaadanaynaa qisadan islaamku inuu yahay diin toosan, sidoo kale uu yahay diinta keliya oo saxda ah. qof walba oo isku daya inuu ka hor imaado ilaahay iyo diintiisana inuu ku dambay doono halaag. waxay heleen qaar ka mid ah hay-adda amniga, koox kitaabo ah oo lagu tuuray biyaha masaajidka iyo musqulaha, iyo kuwo kaloo la jeexjeexay oo biyaha lagu tuuriyeeyey. hay-adda amniga ayaana dadaal badan u galeen inay helaan qofkii falkan sameeyey. wuxuuna sheegay mid ka mid a markii salaada laga baxay inuu soo aaday dhanka biyaha masaajidka, halkaasna uu ku arkay kutubo la jeexjeexay qaarna biyaha lagu dhex riday. sidoo kale waxaan arkay wax ka badan 15 musxaf oo la dhex dhigay musqusha. waxayna bilowday hay-adda amniga iyo horumarinta wanaagga in la qaaday kutubtii islamarkiina la nadiifiyey. waxayna amreen dadka mas-uulka masjidka ka ah, imaamka iyo mu'adinka, inay islamarkiiba xiraan markii salaada laga baxo, inaysan fududaysan oo aysan ka tegin arrintaas. dadkii ayaana dhaheen, ficilada noocaana waxaa sameeya dijaaliinta iyo sixirooyaalka, shaydaanka ayayna ku addeecayaan. dadka qaarna waxay yidhaahdeen, ficilada noocaana waxaa sameeya dadka shaydaanka caabuda, waxayna u sameeyeen falkan si ay shaydaan u raaligeliyaan. ilaah ayuuna u yahay, ilaahay ayaan ka magan galnaye. haddii aad nala joogtay ilaa dhammaadka qisadan, waxaad tahay qof wanaagsan oo wanaagga jecel, ee muuqaalka like saar, sina sheer garey, channelkan subscribe saar adigoo gambareelka u furanaya. fii amaan illaah.